بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلن وعن داوديال ومالينimo sabti ah taariikhdana ay ku aasaysan tahay 22-ka bisha Febraayo sanada 2025 oo waafaqsan 23-ka bisha Shacbaan sanada 1446 ee Hijriyada. Kusoo dhawaada barnaamijka xulashada wararka oo idinkugu soo gudbin doono wararkii dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee dunida ka dhacay saacadihii aynu soo dhaafnay ilaa iyo daqiiqadan. qodobada aan idinkuga haynana waxaa ka mid ah iska caabinta Falastiiniyiinta oo maanta sii daayay 6 ka mid ah maxaabiista Israa'iiliyiinta ah ee ay haysteen. Haddaba maxay yihiin maxaabiistan? Maxayse yihiin labada nin ee ka midka ahaa maxaabiistan ee muddada 10 sano ah lagu hayay Gaza? Faahfaahin ayaan idinkaga haynaa. Sidoo kale waxaan idiin soo gudbin doonaa waxyaabihii yaabka lahaa ee lagu soo bandhigay goobihii lagu wareejinaya maxaabiista oo ay ka mid yihiin qoryihii laga furtay ciidamada Israa'iil iyo waxyaabo kale. Mareykanka oo si cad u sheegay in inta Xamaas ay ku sugan tahay Gaza aysan nabad iyo ammaan uusan jirin. Iiraan oo si jees ah ugu jawaabtay xisbiga jamhuuriga ee madaxweyne Trump oo shir uu lahaa ku soo bandhigay mid ka mid ah diyaaradaha ismiidaamiye ee Iiraan farsameyso. Kuuriyada Waqooyi oo indhaha u shidatay Mareykanka iyo golaha ammaanka oo fariin adag u diray dowladda Rwanda. Qodobadan iyo qodobo kale oo faahfaahsan iyo wixii wara ee soo kordhay intaynu hawada ku jirno ayaan idinkugu soo gudbin doonaa barnaamijka xulashada wararka. ka baro markaska Daarutaqwa Qur'aanka Kariimka higaada علومة الشريعة لغة عربية iyo tarbiyada awlaada hab casri ah online wixii faahfaahin kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda. Soo dhawaada mar kale daawadayaal si aad u hesho wararka warbixinada iyo barnaamijyada aynu halkan ku soo gudbinayno. Haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama aadan hore ugu xirnayn hadda ku soo biir waanad ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka. Saaka waxaan ku hormarinaynaa wararkeena Gaza halkaasi oo daqiiqado ka hor laga sii daayay 6 maxaabiis oo Israa'iiliyiin ah taasi oo qayb ka ah heshiiska xabad joojinta wajigiisa koowaad. Maxaabiista 4 ka mid ah ayaa wareejintooda waxa ay ka dhacday deegaanka Nusayrat ee bartamaha Gaza halka labada kalena lagu sii daayay bandhig lagu qabtay magaalada Rafah ee koonfurta Gaza. Waxaa xusid mudan in goobta lagu wareejiyay maxaabiistan wax ka yar 2 kiiloomitir ay u jirto gurigii uu ku geeriyooday hogaamiyaha Xamaas Yaxya Sinwar bishii Oktoobar ee sanadkii hore. Arrimaha kale ee ka muuqday sii deynta maxaabiista ayaa waxaa ka mid ahaa in goobta lagu soo bandhigay ku dhawaad 10 qori oo ay isticmaalaan ciidamada gaarka ah ee Israa'iil. Sidoo kale goobta waxaa ka muuqday sawirada taliyayaasha ururka Xamaas ee lagu dilay dagaalka. Waxaa kale oo goobta dhoobnaa boqolaal dagaalyahanada kooxaha iska caabinta Falastiiniyiinta. dhinaca kale in ka badan 600 oo maxaabiis Falastiiniyiin ah oo ay ka mid yihiin 50 ku xukunaa xabsi daan iyo 6 xukun waqti dheer ku xukunaa ayaa la sii deynayaa maanta iyadoo Israa'iil ay soo bandhigtay magacyada 605 qof oo maxaabiista Falastiiniyiinta ah ee maanta lagu wado in la sii daayo. Haddaba maxay yihiin 6da maxaabiista ah ee Israa'iiliyiinta ah ee maanta la sii daayay? Avera Mengistu waa 37 jir asal ahaan Ethiopian ah isagoo socdo gudaha Gazana waxa uu soo galay bishii Sebteembar ee sanadkii 2014 waxaana qabtay koox ilaalo ah oo Xamaas ka tirsan. Hisham al-Sayed isna waa 37 jir waa Israa'iili Baduuni ah isna gudaha Gaza waxa uu soo galay bishii Abriil ee sanadkii 2015. ninkan muddo kooban waxa uu ka mid ahaa ciidamada Israa'iil ka hor inta aanu ka laaban. Tol Shaham waa 39 jir waa muwaadin haysta dhalashada Israa'iil iyo sidoo kale Australia waxaana la qabtay isagoo u booqanayay xaaskiisa oo deganeed deegaanka Qudus ee Beeri. Xaaskiisa hooyadeed iyo sidoo kale 2 caruur ah oo dhalay ayaa la qafaashay 7 bishii Oktoobar balse waxaa lagu soo daayay heshiiska isdhaafsiga maxaabiista ee dhacay dhamaadkii 2024. Eli Cohen waa 37 jir waxaana la qabtay isagoo ka qayb galaya xafladda Noofa markii uu bilowday wararkii Oktoobar. Omar Wengert waa 23 sano jir sidoo kale isna waxaa la qabtay isagoo ka qayb galayay xaflad bandhig faneed ah 7 bishii Oktoobar. Omar Oshem Toof waa 22 sano jir
waa farsamayaqaan xagga kombiyuutarka ah, isna waxaa la qabtay isagoo ka qaybgelaya xaflad 7 bishii Oktoobar. dhanka kalena xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Marco Rubio ayaa sheegay in aan la ogolaan karin Xamaas inay dib u dhisto awoodeeda. Marco ayaa sheegay in inkastoo waa sida uu hadalka u dhigay kooxdu ay daciifayso, haddana weli waxa ay leedahay xoog ku filan oo ay ku abaabusho weeraro. xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa intaasi waxa uu ku daray in aysan nabad imaan doonin inta ay Xamaas joogto Gaza, waa sida uu hadalka u yiriyay. hadallada Rubio waxa ay muujinayaan walwalka joogtada ah ee Mareykanka ee ku aadan awoodda kooxda reer Falastiin, inkastoo Israel ay ku andacootay in ay burburisay badi awoodii kooxda Xamaas. kadib markii shirka golaha guud ee xisbiga jamhuuriga ee Mareykanka lagu soo bandhigay mid ka mid ah diyaaradaha kaligood iswada ee loo yaqaano droonka ee sameysay Iiraan, isla markaana la sheegay in si aan qarsooneyn loogu adeegsanayo diyaaradan dagaalada ka baxsan xuduudda Iiraan, taas oo ay ku sheegeen waxa ay ugu yeereen faragelinta, ayaa arrintaasi waxaa si adag uga jawaabay xukuumadda Iiraan. hadal ka soo baxay ergada Iiraan ee qaramada midoobay oo looga jawaabayay warka ka soo yeeray xisbiga jamhuuriga ee Mareykanka ee uu hogaamiyo Donald Trump ayaa waxaa lagu sheegay in aanu jirin wax mamnuucaya iibinta diyaaradaha shahiid ee ismiidaamiya ee aan duuliyaha lahayn. warbaahinta Iiraan ayaa sheegtay in wakiilka Iiraan ee qaramada midoobay uu sheegay diyaaradda aan duuliyaha lahayn ee shaahid ay tahay mid ka mid ah noocyada ugu fiican adduunka, maadaama ay leedahay awood gaar ah oo ku saabsan sahminta, kormeerka iyo howlgallada, qiimahooduna uu yahay mid aad u macquul ah oo hooseeya. wakiilka Iiraan ayaa yiri ma jiro wax caqabad ah ama qaanuun ah oo ku saabsan iibka diyaaradan, waxaana wadan kasta oo doonaya inuu iibsado uu soo codsan karaa haddii uu ballan qaadayo inuusan u isticmaalin weerar ka dhan ah wadan kale. waxaa mudan in la ogaado in diyaaradani lagu soo bandhigay kulanka xisbiga jamhuuriga ay tahay nuuca shaahid 136 oo ay soo saartay Iiraan, isla markaana dhawaan la geeyay Mareykanka. shaahid 136 waxaa soo saaray warshadaha hubka ee ciidanka ilaalada kacaanka Islaamiga ah ee Iiraan ee magacooda loo soo gaabiyo IRGC, oo uu Mareykanku u aqoonsaday ama ugu yeero argagixiso. sida laga soo xigtay warbaahinta Mareykanka, xubnaha xisbiga jamhuuriga ayaa rumaysan in diyaaradani ay tusaale u tahay waa sida hadalka ay u dhigeen hub badan oo laga soo raray Iiraan loona gudbiyay Ruushka si loogu isticmaalo weerarada Ukraine ee Ruushka uu wado. Mareykanka iyo Yurub ayaa si isdaba joog ah uga digay Iiraan taageerada ay siinayso Ruushka, taasi oo la xiriirta dagaalka ka dhanka ah Ukraine, iyaga oo ku eedeeyay dowladda Iiraan in ay sare u qaaday heerka iskaashiga military ee kala dhaxeeya Moscow ayna ka iibisay gantaalada nooca plastiga ah. dhanka kale, Tehran ayaa beenisay eedeymahan, waxaana horey ay siduu u sheegay wasiirka hore ee arrimaha dibadda ee Iiraan Amir Hussein in dalkiisu uu Ruushku siiyay diyaaradda noocan ka hor bilowga dagaalka Ukraine. intaa waxaa dheer, dowladda Mareykanka iyo midowga Yurub ayaa saaray cunaqabateyn badan oo ka dhan ah shakhsiyaadka iyo hay'ado kala duwan oo ku lug leh warshada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaalada Iiraan soo saarta ee Iiraan laga leeyahay. waxay nagu soo fool leh warar ay ka mid yihiin Kuuriyada Waqooyi oo digniin culus u jeedisay Mareykanka, golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo Rwanda ugu baaqay in ciidankeeda ay kala baxdo gudaha dalka Congo, balse haatan aynu ku hakano qadar xayeysiis ah. dhawaada mar kale daawadayaal, weli waxaad la socotaan oo aad daawanaysaan barnaamijka xulashada wararka oo si toos ah idinkaga imaanaya stuudiyaha labaad ee HBN. barnaamijyadeena waxaad ka heli kartaan bogagga bulshada ee kala duwan sida Facebooka, YouTubeka, Twitterka iyo weliba Telegramka. warbixino qoraal ah, faalooyin iyo weliba macluumaadyo kale waxaad ka dheehan kartaan oo aad ka heli kartaan bogga aynu internetka ku leenahay ee www.hbnonlinetv.com. ku xirnow HBN oo ka dhigo weelkaaga wararka. waa hagaaga, markana aynu eegno qodobada kale ee wararka saaka ku jira. wasaaradda gaashaandhigga ee Kuuriyada Waqooyi ayaa war ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in tan iyo markii Trump uu xilka la wareegay ay xoogeysanayso ficilada kicinta dagaalka iyo daandaansiga ah ee ka dhanka ah Kuuriyada Waqooyi. qoraal lagu baahiyay wakaaladda wararka ee Kuuriyada Waqooyi ee ku hadasha afka xukuumadda ayaa waxaa lagu sheegay in Mareykanka iyo xulafadiisa gobolka ay halis ku yihiin Jamhuuriyadda Dadweynaha Dimuqraadiga ah ee Kuuriyada Waqooyi
si gaar ahna waxaa loo soo qaatay howlaha wadajirka ah ee military iyo joogitaanka ciidamada Mareykanka ee Kuuriyada Koonfureed. Afhayeen u hadlay wasaaradda gaashaandhigga oo aan magaciisa la xusin ayaa u sheegay wakaaladda KCNA in ay ka hortagi doonaan hanjabaadaha istiraatiijiga ah ee ka yimaada cadowga, isla markaana ay isticmaali doonaan xoogooda istiraatiijiga ah, isaga oo ballan qaaday in Pyongyang ay sii wadi doonto howlaha military. Kuuriyada Waqooyi ayaa horey ugu dhaleeceysay xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Marco Rubio, kaasi oo ku tilmaamay Kuuriyada Waqooyi dowlad xun. Hadalkaasi oo Pyongyang ka careysiiyay waxa ay ku sheegtay inay si adag uga jawaabi doonto daandaansiga Mareykanka. Dhinaca kale, wasaaradda difaaca ee Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegtay inay sameeyeen dhoolatus xagga hawada ah oo wadajir ah oo ay la sameeyeen Mareykanka iyadoo la adeegsanayo ugu yaraan hal diyaarad oo ah nooca B-1B ee istiraatiijiga ah. Kuuriyada Waqooyi ayaa muddo dheer ku dhaleeceysay dhoolatusyada military ee wadajirka ah ee ay sameynayaan Mareykanka, Japan iyo Kuuriyada Koonfureed, iyadoo ku tilmaamtay dhoolatusyadaasi in ay yihiin diyaar garowyo dagaal, balse xukuumadda Kuuriyada Koonfureed ayaa ku andacootay in tababarkani uu yahay mid difaac. Ugu dambeyntiina, golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ku booriyay ciidamada Rwanda in ay joojiyaan taageerada ay siiyaan jabhadda M23 ee ka dagaalanta bariga Kongo, isla markaana ay ka baxaan dhulka Kongo iyadoo aan shuruud lahayn. Golaha oo ka kooban 15 xubnood ayaa si midaysan u ansixiyay qoraal uu diyaariyay Faransiiska, isaga oo ku baaqaya in Kongo iyo Rwanda ay dib u bilaabaan wadahadal siyaasadeed si loo gaaro nabad waarta. M23 ayaa qabsatay labada magaalo ee ugu waaweyn ee bariga Kongo, taasi oo keentay cabsi laga qabo dagaal ballaaran. Rwanda ayaa beenisay in ay taageerto dhaqdhaqaaqa ama jabhadda M23, iyaga oo sheegaya inay ka difaacayaan militariga Hutu ee lagu eedeeyay in ay la dagaalamaan ciidanka Kongo. Qoraalka ayaa si adag u cambaareeyay weerarada M23 ee Koonfurta Waqooyi iyo Koonfurta Koonfureed ay ka geysatay, lagana dalbaday in ay joojiyaan dagaalada oo ay ka baxaan dhulka Kongo. Kongo ayaa ku eedeysay Rwanda inay jabhadda M23 u adeegsatay in ay ku hesho macdanta, halka Mareykankuna uu cunaqabatayn ku soo rogay wasiir ka tirsan Rwanda iyo sidoo kale kuwa kale. Qoraalka ayaa sidoo kale cambaareeyay taageerada ciidamada Kongo iyo kooxaha hubeysan sida kooxda FDLR, isaga oo ugu baaqay in taageeradaasi la joojiyo. Waa tahay daawadayaal, guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii xulashada wararka oo halkan aan kaga soo tabinaya anigoo ah Nimcati Macade. Si aad u hesho wararka, warbixinada iyo barnaamijyadeena, haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama aadan hore ugu xirnayn, hadda kusoo biir. waad ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka. Tan iyo intaynu dib ugu kulmi doono barnaamijkan kiisa xiga, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.